مدى المبعوث فينا رحمة البرايا مثل غيث هدلا فارتووا من ماء هذي المصطفى وسقاهم بعد نهل على maanta waxaynu idinkala soo hadlaynaa afaafka hore ee hoyga caalimka Soomaaliyeed Sheekh Cusmaan Sheekh Umar Sheekh Daawud Sheekh Cusmaan Xidig maanta halkan waxa lagu qabtay ziyaarada Rabbiha u naxariiste Sheekhi Jaliilka ee Soomaaliyeed Sheekh Cali Xaaji Maxamed Xaaji Cali oo loo garan og yahay Sheekh Cali Maye ugu horeyn ziyaarada maanta waxa lagu dahfuray akhrinta qidmooyin quraan oo thawaabtooda loo niyeystay sheekha iyadoona kadib la akhriyay dhowr fadhi oo digri ahmadiya ah gaar ahaan rahmaaniya kadib waxa kalimad kooban oo ku saabsan taariikhda sheekha iyo sooyaalka fidinta diinteena suuban ee islaamka uu ku lahaa goobta ka soo jeediyay Sheekh Shariif Joonaxood iyadoona kalimada kadib oo goobta ka duceeyay caalimka Soomaaliyeed Sheekh Cusmaan Sheekh Umar Sheekh Daawud Sheekh Cusmaan Xidig Sheekh Cali Maye wuxuu ahaa asigoo kaleetood qof aan la arkinin xagga dhugta iyo dadaalka juhdiga oo ku bixinayo mararka qaarkood waxa dhacaysay mudaalacadu in ay la tagto waxuu ahay mudaalacashada inuu daa'imayo habeenka iyo maalmaha saacadooda oo dhan ayuu daalacanay mararka qaarkood waxa dhacaysa in waagu dushiisa ka bariyo asigoo waaga daalacashada ku guda jiray sheekha Allah ka raadli noqdo mararka qaarkood saaxada dham ayuu ka dhumaaya xagga Ilaahay uu dhumaaya Allah ka raadli noqdo mararka qaarkoodna waa soo baraarugay marka sidaas ayuu ahay sheekha raxmatullaahi ta'ala alayhi sheekha waxyaabaha la yaab kale ee lagu arkay oo cilmigiisa na tusinaya qaayadiisa iyo yoolkiisa iyo meesha uu gaaray waxa kamid ah nin boqor ahay oo la dhihi jiray Suldaan Qaabuus bin Saciid oo dhulkaas Zanzibar ka talinayay ayaa sheekha waxa la yiri nin caalim ah beledka soo galay saas loo sheegay Suldaan Qaabuus caalim weyn ayaa beledka soo galay ayaa la yiri markaas la yiri awir caalim weyn ma soo galaha waa jirabayna hawra adu caalim weyn oo yahay marka laba imtixaan ayuu sheekha marsiyay mid cilmigiisa bal heerka uu gaarsiisan yahay ayuu ku imtixaanayay midka kalena taqwadiisu heerka ay gaarsiintiisa iyo waraciisa ayuu ku imtixaanayay waxa dhacda marka sheekha markii uu beledka soo galay oo sidaas loo sheegay oo wiri culimada beledka 40 caalim oo wada naxriir ah oo kulligooda ragga maragta kama dambaysta la soo kulmiyo waa la soo kulmiyay saf ayaa marka la galiyay 20 inta laga safay wada oo sheekhu soo marana markaas dhaxdooda ayaa laga baneeyay waa hadii 40 caalim oo kulligooda dadka cilmiga lagu sheego oo ugu koreeya markaas wuxuu yiri 40 kan qof kasta oo kamid ah sheekha hal mas'ala kaliya warsato hal mas'alo qof la arkaba warsato 40 kooda mas'alada hada kutuban ka soo fiirsa iyo waa soo damooha iyo la iska yeelimahay waxa la rabaa irtijaali
inuu asu uga jawaabo ayaa laga rabaa 40kii sheekh ayuu bidixyo midig ayuu ugu kala tuuray jawaabtii dhag 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 soo ugu tirihaay oo 40 koori asigoon hal eray ku joogsan ayuu banaanka uga baxay markaasaa la yiri bas waay markaasaa waxaan hadda kuma arkin qoraalka laakiin 21 madfacaal loo ridi jiray ninka caalimka ama qofka aad loo weyneeyahay ama madaxweyne marka wadanka soo galo yaa markaasaa la yiri loo ridaa la yiri madaaficdii loo ridi jiray madaxda asagana ha loo rido markaasaa waxaa loo riday madaaficdii loo riday marka ixtiraam dartiisa iyo weynayn darteed sheekha marka cilmigiisi waa la ogaaday inuu caalim kama dambayso uu yahay oo axad cilmi ku gaarahay uusan joogin beledkan markaasaa waxaa la yiri haddana wuxuu ku imtixaana haddana taqwadiisa ayuu haddana imtixaan geliyay wax lamida taqwo haddana iyo warac iyo xalaal miirati kula mid ah inuusan asan haddana waxaa la yiri aysan jirin inuu sheekhu haddana ogaaday intii soo ziyaaratay meel kasta adduunyada ay ka joogaan dambi dhaaf allaha siiyo waxay rabaan oo khayr ah allaha siiyo nabadgelyo allaha siiyo nicmo badan oo adduunyo allaha ku siiyo adduunyada la joogi maayee marka noogu dambaysana laa ilaaha ila allahu allaha ka dhiga qoolkeenna allaha nagu khatimo owliyadu waa shafeecdaahe inta shay caalmaya u shafeecayo iyo mashaayikhdiisii allaha nagu daro xuseen sheekh axmed muqdishaawi suufi islaamik TV muqdisho